Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa waxtarka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee xulbadda. Xulbaddu waa geed daaweed faa'iido badan u leh bini'aadamka. Xulbadda waxaa ka buuxa borotiin iyo maadada loo yaqaan fosfor. waxayna faa'iidadeeda nafaqeed u dhigantaa beerka nabiriga maadaama 100 garaam ay ku jiraan 4400 oo miligaraam oo borotiin ah. ugu horeyn haddaynu ka hadalno 100 garaam ee xulbada waxaa ku jirta nafaqa ahaan 6000 oo miligaraam oo karbohaydrayt 4400 oo miligaraam oo borotiin 900 oo miligaraam oo dufan 395 miligaraam oo maadada calcium iyo 50 miligaraam oo maadada phosphorus iyo 1.39 miligaraam oo bira iyo energy u dhigma 49 kilocalories. sidaa daraadeed xulbadda markii la karkariyo waxa ay faa'iido u leedahay nafaqeynta iyo inay wax ayeliso ama naaxiso. markii la karkariyo xulbadda waxaana loo cabi karaa calool xanuunka iyo feedha xanuunka. intaa kadib xulbadda waxay kaloo faa'iido u leedahay gabdhaha caatada xilliga qaangaarka maadaama ay sare u qaado hormoonada jidhkooda ku jira waxayna furtaa aabateedka. haddaba markii la rabo inay cunnada kuu furto 30 garaam oo xulbada ayaa waxaa lagu daraa 1 litir oo biyo oo karkarsana waxaana la cabaa cunnada nus saac ka hor si ay cunnada uga caawiso xagga dheefshiidka iyo ka faa'iidaysiga jidhka. sidoo kalena haddii saliid laga dhigo xulbadda faa'iidadeeda waxaa ka mid ah in hooyada naaska nuujisa ay caano badan u keento, haweenka caadada ku xanuunsadana inay ka khafiifiso oo si sahlan ay uga timaado. xulbadda waxaa kaloo lagu daaweeyaa nabraha ku samaysma dadka qaba sonkorta. waxay kaloo daawo u tahay calool adayga iyo babaasiirta. haddii lagu luqluqdana waxa ay daaweysaa quumanka. haddii la isku huuriyana waxa ay yaraysaa qufaca siyaadada. ugu dambeyntii waxaa looga digayaa haweenka haddii aad leedahay uur ha qaadanin xulbadda waayo waxa ay saamayn kartaa korriinka maskaxeed ee uurjiifka. sonkortaadana way ridi kartaa, minkana way maroojin kartaa oo foosha ayay soo dedejisaa.